khudbadeena maanta waxay ku saabsanayd waaqico weyn oo bishaan Ramadaan dhex dhacday ama xaadiso ka mid ah xaadisooyinkii islaamka oo la yiraahdo waaqi'atu badrin al-kubra ama ghazwatu badrin al-kubra dullaankii weynaa oo badr la oran jiray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta Ilaahay uu ugu gargaaray guushana Ilaahay uu ku raaciyay maalinkaas maarata weyninka badan oo maarata taariikhdaas aad iyo aad u cajabta badan yaanu joognaa taasoo dhacday zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada marka waxay ku aadan tahay maalinka 17 oo ka mid ah bisha Ramadaan maantana waxa u maleynaa 16 weey Soomaa marka munaasabadaas ayada ah waxaan jeclaan lahayn bal inaan wax ka xusuusano insha Allah ya wadakirhum bi ayaamillah wa kan Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka noogu sheegay nabi maxamed dadka waani baa leeyahay maalmaha Ilaahay yani waa xawaadista oo ayaamta dhex dhacayaan xasuusi ya ambiyadii baa la xasuusinayaa waxyaabihii dhacay baa la xasuusinayaa maxay ahayd hadii lagu roon yahay muslimiinta iyo gaalada fircoon iyo maarata Haamaan iyo nabiyullaahi Muusa iyo Haaruun iyo wixii soo dhex dhacay baa maarata quraanka looga taariikhaynaya ay sheegay lagu roon yahay waxa laga sheekaynayaa maarata nabiyullaahi Daawud iyo nabiyullaahi Sulaymaan iyo ambiyadii Ilaahay waxyaabihii ay soo mareen oo maarata sida xaq u kor yeeleen iyo sidii loo dhibaateeyay iyo sidii diinka Ilaahay ugu jihaadeen iyo gaaladii maarata dhibaatadii iyo shidadii ay ku wadeen inay xaq baabi'iyaan oo maarata kelimada Ilaahay ay maarata duleeyaan oo zuliyaan iyo sidii loo ambiyada iyo inta raacsanba ay ugu dadaalayeen kelimada Ilaahay inay kor yeelaan yani quraanka ku jirtaa qisasul anbiya quraanka looga sheekeeyay وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحي مارت قصصها أولاً إلهي سبحانه وتعالى مارت أنبياء القرآن كان لو شيكي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص قارنا قصصته هذا القرآن كان لو شيكي قارنا هذا لما شيكينه الأنبياء والمرسلين قصصته هذا وحل كوبي كرماها انتي أهم كأها oo markaasi maaragtay qadarta Ilaahay ay ku dureersatay munaasib kana noo ahayd yaana loo sheegay marka munaasabadaha noocaas oo kala marka inaanu ka faa'iideysano insha Allah ta'ala isugu imaano waqti dheer siino aad u fiicnimada ay nooga sheekeeyaan bal taariikhdaas ayada insha Allah maxay ahayd dagaalkii Badr muxuu ahaa qaabkee u dhacay muslimiintu maxay doonayeen ii sheegay lagu roon yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u ayiday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ayagoo tiradooda iska yar tahay tiradoodu tiro yar bay ahayd hubkooda markii la fiiriyo iyo dhaqaalahoodana aad buu u yaraa cadad iyo cudad baa la yiraahdaa cadadkooda qaliil buu ahaa waa yaraa hubkooda iyo dhaqaalahooda na uu iska yaraa marka ayagoo muslimiinta marka dhan kastaba maxay ahayd hadii alla ku roon yahay ku yar yihiin oo la liidayo buu dagaalkii dhacay oo haddana u diyaar garoobinba oo dagaal buu soo banbixinba maca dalika haddana إلهي سبحانه وتعالى وعده سواء فيه إلهي بقرآن كدحديث كشاقي إنا لننصر رسلنا إلهي وحيري رسوشنا ذا وأقر قارينا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كدحديث سواء كشاقي وإن جندنا لهم الغالبون أنك عيدا كنك يددكنا أنك أقر قارينا أيها غالب نقنية قال تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين عربت السن ولقد وحا اسكال ددك إلهي كعب صدا
marka nuurisu man nasha min cibaadina ardadan ilaahay baa iskale laakiin ilaahay wuxuu dhaxal siiyaa dadka muuminiinta oo saalixiinta oo ahlu khayrka kuwaasa ilaahay u gargaaraa oo maaragta ardada ilaahay u dhaxal siiyaa marka intii ballanqaad ahaa oo dhan ilaahay waa oofiyey wacdigii ilaahay waa oofiyey maaragta ilaahay quraanka dhexdiisa wuxuu ku yiri walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla ilaahay nasri buu noo sheegay inuu u gargaaray dadka muuminiinta ayagoon filanaynin ayadoo maaragta cabsi ay jirto maaragta ilaahay nasrigiisa inuu ilaahay u gargaaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sakiino qalbigooda ku soo dejiyey markay cabsidii imaatay oo la soo duulay oo maaragtay diyaaligu sanaadiiddu quraysh madaxdii quraysh oo dhan ciidamadii wixii oo dhan la isku yimid oo maaragtay diyaali ku وأنزل الله في قلوبهم السكينة إلهي قلبي وذا وحو كسو دجيي حسلوني وإلهي كسو دجيي إلهي اللي اسكا بسيحضي أو اللي اسكا قمايوضي أو مركا قصة سيدة يو خطيبك نوغا ماركتا ورمي أو نوغا وربحيي قال تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وحجر إلهي سبحانه وتعالى وها حقيقة إلهي وإنين قرقاري قربونا إنين سيي عيال كبدر ماشا اللي لا بدر كو عيال ويان ماشا بدر لغو مقعابو ماشا نصر إلهي وإلهي إنين سيي قرقارك إلهي يقوشي ياد هشين وأنتم أذلة أذنكم اللي توير إلهي سبحانه وتعالى أرتفيري يا نصر إلهي حقي سكاء هذا يا ما أنا واحد أودي إلهي بحجري وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وذكرت إن بدن ضد ير أو إلهي غلبة أوصيه يا ضد فرب بدن أو لقى قاضو مارك غلبة يأود لقى قاضو مارك أيجو ذو الليسان أو ضعيف أو لضعيف سنة أو لليدا أو للي أنفسه قراعنهم وقراعه يا هل مرة أوصى قراعنه إلهي سبحانه وتعالى وأقرقار النصر يقول راعيي إلهي القرآن كده حديث وحكو يري فاتقوا الله ضدوا إلهي كعب صدر وفكادوا إلهي كعب صدر وقولي سنة أسيا قولي سنة وحلقوا قولي سو وميلقوا قارو والله كعب سيغا وضاعد إلهي وتوصنانتا وإيمانك وعملك صالحا لعلكم تشكرون واحد مدنتين بالينا إلهي كشكر سانو نعمدي سعد وشكرسان هي النصر إلهي سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم مركي وبحيي صحابته أدبوا يرايان سدح بقولوا نن بهايان سدح بقولوا الروح يا صحابته هايان يا وحير وحي وتين ورنا لو فرس بهايان لو فرس كليا مارت يي وتين مركا لودا فرس با مركا لا اسكو بدلay oo markii la daalaba qola fuulays waa laga degay qola kala fuulays waa laga degay qodobka siirada waxay qorayaan nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo laba qof oo kale ba isla cirbinay hal qati ya oo sidina ali uu kamid yahay marka marma qof markii oo maaragtay diyaal ku raaxay markii la gaaro kalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay leeyihiin ya rasuulullaahi namshi rasuulka ilaahay waa soconaynaa adoo faraskaaga ما ركته النبي وديدي جري صلى الله عليه وسلم النبي وحدي جري ما أنتما بأقوى مني أنا يجي حق بدنتي ما هم ليس أنا يجي ما حق بدني درير يا مركادين كان قوة إلهي نسيي أنا كان أود أن أصعد إلهي وينسيي أنا كان ما هي أجر كميت كده يقطن ميه هو ساعدين كبأجر كوجود باتونتين يعني كان أجر كأورادنا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالفيري وعلى الجهاد بالله صعدا غير بالله صعدا أجر بان ودرادنا دينك إلهي بان كريلينا حقا أدرينا عدوا اسكدعنا سما يا جدك إلهي بان كسعنا هذا ذكر أجر بان رادنا إنسان أنا أجر بان رادنا يا أجر كان أنا ساد وبهانتين بان وبهانا هاي أود إنك ميري marka way kaltamayeen marka nimba inbu raacay masaafo raacay
marka geela ay wateenna wuxuu ahaa awrta la raacaya ilaa 70 baa la yiraahdaa marka maqsuudka loo socdayna wuxuu ahaa muslimiinta la dhacay oo la birilaqaystay oo la dhibaateeyay oo guryahoodii laga soo maaragtay barakiciyay oo haddana hantidoodii iyo xoolahoodii la boobay Abu Sufyaan ninkii la oran jiray oo maaragtay diyaal ku ruran yahay wada safar ah in asagana jidgooyo loo dhigo oo dhibaatada ay sameynayaan iyo shidada ay sameynayaan abaalkeeda laga waraabiyo marka Abu Sufyaan waxay ahayd arintaas intuu soo islaamin Abu Sufyaan waa ogaaday arinta iyada ahayd inuu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay saxaabada ay soo baxeen buu ogaaday khabarkii buu helay arsala ila quraysh bil khabar markiiba waa gaarsiiyay reer qurayshaan wuxuu yiri maxay ahayd diyaal ku duulaan baa soo baxay buu yiri si ay u ilaaliyaan safartooda ay u ilaaliyaan fariin buu u diray akhbaar buu gaarsiiyay dariiqii oo mari lahaana waa ka leexday oo wuxuu qaaday wado kale oo xagga badda iyo maray marka waa badbaada marka wadadii ay ku baxeen nabigii saxaabada mooyee wado kale u maray qurayshna mar alla markii khabarkii uu gaaray waa soo baxeen ayagoon maaragtay ilaa kun ka sii badan oo ciidan aad u fara badana oo aadna u hubaysan bay soo baxeen ilaa waxay wateen farda ilaa 100 ka ziyaadaya bay wateen awr ilaa 700 camala yay wateen meeshaas ka soo baxeen waxay wateen ay soo kaxaysteen naagihii heesayay iyo kuwii gurbaanada tumayay iyo malaayadii oo dhan bay soo kaxaysteen Abu Sufyaan markuu ogaado marka inay Quraysh soo baxday oo duulaan ay soo qaaday oo maaragtay diyaal ku si xoog leh ay u soo darbatay asagiina uu badbaaday markuu ogaaday Abu Sufyaan khabar buu celiyay wuxuu yiri iska soo noqdo buu yiri waa diideen Abu Jahl baa hadlo wuxuu yiri wallaati wal uzza yiri waxaan ku dhaarta sanamka laata la yiraahdo iyo uzza asnaamta iska caabudayeenoo maaragtay diyaal ku roon yahay ilaahayaasha ay ka dhigayeen marka wuxuu yiri la narji'u hatta nabluqa badran meesha badr la yiraahdo oo Muhammad iyo saxaabadiisu ay joogaan Madiina meel u dhoweeyaan Madiina meel u dhow ilaa meesha aan tagno ma noqonayn ونقيم فيه 3 وسدح مالين أن مشى جود هذا اللابتان حتى محمد صحابتي هذا عرران وحتى مدينة أي قلان ونقع عرران أنه سدح بريبان مشى سجوجينا ننحر فيها الجزور قيلنا مشى سنقول عنينا وأنا ما سود يرجروبي على واحد صوت قيل يقرن لها عيانيو وحوا راشين كوديو واحد صوت عفين ماله مشى سنقول على قرنينا كوهل بقرنينا ونطعم الطعام راشنكنا وقودنا عيدا كايو وعرض كدو راشنكا سينينا ونسقي الخمور dadkana waxa waraabinayna khamrada gaaladu saaran bay weligoodba ya khamrada iyo balaayada iyo maaragtay fisqiga saaran bay ahaayeen marka waxay yiraahdeen khamradaasna waa cabaynaa waa waraabaynaa dadkana waa waraabinaynaa wa tasma'u bina al-arab عربتنا هنا مقلانو ضدكنا وحوي شاكذنا هكذا جارتو فلا يزالون يهابوننا أبدا ولجن ونقعب صنيان إن نقعب صدان ربنا حتى هدي محمد الصحابة ما هو نابر برديق كرانه ما يستاهي كرانه ويعرض يعني لكن وحربنا إن رمقله وهيبدا يعرضك الشاء نقله يبيستو ولي هذا مكة يا قريش وحول وان كرم مجرو marka arintii ayada ahayd markuu nabiga ogaado calayhi salaatu wasalaam inay maaragtay duulaan u soo baxeen oo Quraysh ay maaragtay soo biirsadeen markuu nabiga ogaaday sallallahu alayhi wa sallama istashara ashabahu fi hada al-amr nabiga istishaaru sameeyaa tashaday wala tashaday saxaabadii buu la tashaday marka waa ka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka dhexdiisa ilaahay maaragtay uu ku sheegay كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. markii meeshii la tashaday hada dadkii argagax waa ku dhacay in badan oo kamida dadna waxay noqdeen dad sugan oo maaragtay diyaar ku rooyahay la jirka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo iimaankooda uu weyn yahay oo marka وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم على جعلها dadkaas yar oo safartaas iyo maaragtay ciidanka waxaas aan badnayn un yaa la jeclaa dagaalkan iyo dhibaatadan iyo lama jeclayn laakiin xigma meesha ku jirtay oo yuriidu Allahu an yuhiqqa al-haqqa xigma ku jirtay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xaqa muujiyo ويقطع دابر الكافرين قالدنا maaragtay la dabar gooyo gaaladana balaayo lagu dhufto oo awoodooda iyo maxay ahayd hadii la ku rooyo dadnimadooda in la tuso yaa la doonayay liyuhiqqa al-haqqa ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu doonayay xaqa inuu sugo ويبطل الباطل باطلكنا ilaahi uu baabi'iyo walaw kariha al-mujrimuun ayagoo halka hadaanba laakiin la jabiyaa la rabaa oo la jabiyo oo maaragtay ciidankooda iyo cadadooda iyo cudadooda iyo waxa oo dhan bala tirtiro oo maaragtay awoodda laga qaado